taniyo intii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Majaraha dalka qabatay ayaa waxa si xawliya u socda ismaha wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer taasoo muhiimad weyn u leh guud ahaanba shacabka Soomaaliland ismaheeduna hadda meel fiican marayo haddaba waxa maanta soo gaarsiiyay qalab casri ah shaqaalaha hay'adda wadooyinka ARDA oo ay ka mid yihiin maariyaha guud ee wadooyinka Axmed Yuusuf iyo sidoo kale maareeya ku-xigeenka Mustafa Faarax Qalab ahna madaxa mashruucaasi qalabkan buundooyinkii biyo xidheenada laguna dayactiri doono inta u dhaxaysa wadada Ceerigaabo iyo Afmadoobe ayaa waxa halkaas ka hadlay isla markaana sharaxay qalabkan iyo muhiimadda wadada u leeyahay maamulka wadadaasi uqaasha iyo simada guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garadag waxaan leeyahay sida wacan oo runtii sharafta iyo karaamada badan loo soo dhaweeyay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan mar labaad u mahad celinayaa dhammaan guud ahaan shaqaalaha hay'adda ARDA gaar ahaan kuwa ka shaqeeya wadada isku xidha Sanaag iyo Togdheer oo runtii habeenay maalin juhdi ballaaran geliyay aadna uga shaqeeya sida dar la u wada hawsha wadada iyo hawlqabadkii iyo hawlihii loo dirtay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha qaranka wasaaradaha gaar ahaan wasaaradayada oo runtii aadna u fududeeyay aadna u dardar geliyay in ay noo qalabka kan maanta halka jooga ee eershada iyo biyo mareenada kalfartiska loo yaqaano lacagtiisa iyo cashuurihiisa iyo hawshiisa oo la fududeeyay oo bixiyay aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay saaka halka inaan ku rogayno dhammaan eerashadii guud ahaan wadada ilaa Afmadoobe ilaa Ceergaabo wixii wada biyo mareena inaga goolaamay inaga xumaa qalabkoodii maanta waa kan halka yaala wanaga halka sidna insha Allah si degdeg ah loo bilaabi doonaa qalabkaasi waxa weeye waa qalabka dhul fog baa laga keenay milyan dollar lacag buu inagu joogaa waxa weeye waa dhamaystirkii ugu dambeeyay iyo isku dubaridkii wadada rabbil caalamiin waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan community-ga reer Garadag maanta waxaanu joognaa buqadda weyn ee Garadag ee caanka waxaanu joognaa karaksharka waxaanu joognaa meel nimca ka dhacday waxaanu joognaa meel shaqo fiican ka socoto waxaanu joognaa meel wada iyo in badan himilo la sugayay ay ka hirgashay waxaanu keenay buundooyin ka badan 350 buundo ima eerash waxa loo yaqaano ayaanu maanta gobolkan Sanaag aanu ka dabooleynaa waxaanu sidnaa dhowr boqol oo waxaan ka yareen 280 buundo oo yar yar waa la isku xidhxidhi doonaa waxa sababteeda leh oo ugu horeeya oo looga mahad celinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo iyadana looga mahad celinayaa maareeyaha guud iyo wasiirka anigoo ah madaxa mashruuca maamulaha mashruuca Ceerigaabo intayadaasiba waxaan u fataxaydanay sidii wadada Sanaag ay qaranka uga dhamaan lahayd gacantaan ku haynaa waa nasiib badantii reer Sanaagow waxaanu idin sheegaynaa walaalayaal inaan wadada sidaa u soconaysa ee buundooyinka sidaa loo sameeyo ee afarta habeenimo shaqaalo shaqeynayaan in dad Sanaag ku noolay ay aaminsan yihiin wadadii inay maalintiisii ilaahay ka tagay ay istaagtay waa nasiib darro wadadu maalintii uu madaxweynaha iyo dawladda hore ay meesha ka baxday madaxweynaha jooga halkii uu ka sii bilaabay waa hal xusbi waa hal dawladeed waa hal ijeedo waxa weeyaan waxa ku magacaaban ma aha xitaa labada madaxweyne oo qura ee waa xusbiga kulmiye ayaa ku magacaaban ayaa ku shaambadaysan hadii mid kala qabsadayadoo qabyaan dhinaca kale ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay una mahad celiyay mas'uuliyiinta heer degmo ee degmada Garadag iyo sidoo kale uqaasha iyo waxgaradka degmadaasi waxana hadaladoodii kamid ahaa qasharka lagu rogayaa meel fog bay ku yimaadeen halkii looga baahnaana maanta way yimaadeen waa arin aad iyo aad muhiimadeeda u leh intii ka soo shaqaysay heer wasaaradeed heer madaxweyne heer maareeyaal in allaale intii ku lug lahayd juhdi fara badan baa la geliyay dhaqaale fara badan baa ku soo baxay baday soo mareen maanta waxay joogaan halkii looga baahnaa baa lagu rogayaa aad baan uga mahad celinaynaa heer madaxweyne heer wasiir heer wasaaradeed maareeyaasha maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha والله وأرين معتساء ويا وضدني وحوي حاولي أي كسر كرشركي قردك تجمد قردك إن وحنا سوق الحمد لله رب العالمين هذا الكويح اللي يري هرا لو يري وحنا سوق بودوين كي خالق ها بيا مرينكا بس ساكن سوق يودش يد التاجن لنا الرقية إن واحد تاجن وكلام ماري كحدين كي إن ودوين كا وان سوق ويننا إلهنا ومهدنا maarayihii hari xigeenkii dhamaantood waan soo dhaweynaa degmada Garadag ku soo dhaweynayna
hawshana horey uga hayeen waxay sidaan qalabkii lagu xidhayey eerashiyada oo ay yidhaahdeen 52 goobood buu ku filan yahay oo ilaa ceerigaabo iyo in afmadoobe ah oo ahna qaabilsanaa jiidan waanu soo dhaweynaynaa waxay maanta hay'adda wadooyinku noo keentay qalabkii loogu talagalay buudooyinka in ay dhammaantood buudooyinka in afmadoobe ilaa iyo ceerigaabo inta u dhaxaysa buudooyinkii ku filaa ee geli lahaa ee biyaha sii dayn lahaa farxad cabdi nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag